إنك عندها كتورين ومر ربنا إنه هجان ما هيتا وحيتا هاي أمني يا أمني إلالية حلدبان مياه إلالية موزير با إلالية مدحوينا إلالية محا إلالية محانكو إلالية أقاسيما إلالية ما إلالية عيدا ما إلالية محا إنه عيدا ماذا إنه حقرينا وكما قفك الصوماليات إما أنت الصومالية تشوغا إيسيقي حاسكسي عروسة $100 كونو لانكا maxaynu oranaynaa ciidamadan priority-ga siinayna ciidamadan muhiimadda siinayna shaqaalaha rayidka qofka A grade-ka wuxuu qaataa $1,000 iyo ka badan kabigaana wuxuu qaataa $700 iyo ka badan siigu wuxuu qaataa $400 iyo ka badan waxayna ku jiraan mukayf kafee bay cabayaan kobajiin baa u yaala baabuur baa u yaala maxaan ku yiraahdaa xafiis qabow bay fadhiyaan askarigii furintiga joogay ee duurka ku jirayna waxaan $100 qaad ma suuragelayso waxaan soo jeedinayaa haddaan dhab tahay inaynu ka hadalno amniga dalka oo ciidamadu shaqeeyaan askariga dablaha ee xoogga dalka booliiska asluubta nabad sugidda dablaha in uu la mid noqdo markuu ugu yaryahay qofka si grade-ka ee maxaan ku yiraahdaa shaqaalaha rayidka oo uu $500 lacag ku dhow qaato $500 askariga dablaha inaynu siino saraakiishina dalacaadooda iyo garaadahooda ay ku qaataan amniga dalku waa sugmayaa markaas waxaan rabaa lacagtaas xaggee ka imanaysaa waa la isdhihi karaa lacagta aan leeyahay $500 askartaha looga dhigo dablaha ah saraakiishu waa inay ka badataa priority-geena koowaad waa ciidamada waa amniga xaggee ka imanaysaa waxay ka imanaysaa lacagta xafiisyada ku qoran lacagta ku qoran xafiisyada dawladda madaxweynaha waxaa u qoran $5 billion xafiiskiisa رئيس الوزراء وحاو 5.5 مليون قدونك وحاو قرن 4 مليون وزارة وحاو قرن العكل برسنتي كان لغا سو ودا غوي 50% مدحوينها لغا غوي 30% برايم مينستر كان لغا غوي 20% لغا غوي maxaan ku iraahdaa wasaaradaha 10% ama 25% laga gooyo maxaan ku iraahdaa gudoonka baarlamaanka lacagtaas waa inay ciidamada aadaa because shaqaalaha iyo xafiisyadu mukayfiye ku jiraan meel nabadeena joogan lacagta kale 90% ama 40% ama 50% dakhligii kordhay ciidamada aad lacagta kale ee dawladuhu bixiyaan lacagii ugu dambeeyay dawladda qadar bixisay intay tahay ma naqaano waa la sheegaya ciidamada hal geliyo ciidamada hal geliyo lacagta qadar ay bixisay ee dhowrka mar ay keentay sida la sheegay anagu ma naqaan miisaaniyadana kama muuqato ciidamada hal geliyo waxaan ku soo gabagabaynayaa hadalkayga mudane wasiir priority-ga koowaad ciidamada hal la siiyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed $100 kuma filla shaqaale siiyaan inay ka hooseeyaan ma aha asluub